Assalaamu calaykum. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa waa maxay guul iyo astaamaha ay leedahay guushu iyo wadooyinka loo maro guusha. Balse intaynaan muuqaalka gudagelin, muuqaalka like saar, sidoo kale haddaad nagu cusub tahay subscribe channelka. Haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay. Muuqaalkana si share gare. Haddaba guushu waa maxay? Guushu waa himiliye hiigsi aad leedahay oo aad gaadho, kumana timaado xagla laaban, sahal, fikir gaabni iyo hamiyaraan iyo samir la-aantoona. Guusha waxaa sargooya hanka, hiigsiga iyo humaagyada mustaqbaleed ee uu qofku meel dhigtay. Markaa waxay ka dhigan tahay qof waxa u guul ah ayaa mid kale u ah bilowga hayaanka guuleed ee uu hiigsanayo. Haddaba wadooyinka loo maro guusha waxaa ka mid ah dejinta hami iyo hiigsi, isbedel joogto ah. Dhammaan dadka raba inay nolosha ka sameeyaan guul waxaa naftooda ay ku qanciyaan inuu isbedel waajib yahay. Waxay hoos iyo korba u sheegaan, cod dheerna ku sheegaan in isbedel loo baahan yahay. Waxaa mararka qaar dhacda in lagu arko qof khaldan, balse nolosha waa wax ku caadiya. Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam ayaa tusaale fiican kuugu filan. Samir iyo dulqaad. U fiirso dadka waxa ee guulaha gaadhay ee noloshaada ku xeeran iyo dhammaan dadka saameynta tooska ah kule nolosheena. Ma jiro qof ku gaadhay nolosha uu gaadhay habeen, mana jiro qof saacadaha tiriyey si uu u bedelo nolosha uu rabo, balse qof kasta waxa uu huray waqti dheeriya isagoo oo muujiyey samir iyo dulqaad xad dhaaf ah. Go'aan iyo xog saarid. Ma jiro qof meel gaadhay oon dadka fikirkiisa ku qancin. Soo xasuuso dhacdadii cajiibka ahayd ee suubanaheenu sallallahu calayhi wasallam nagu yidhi inaad irjooji waxaad wado, aan ku siina waxaad rabto. Suldaannimo, xoolo, haween qurxoon. Inta uu aamusay ayuu ku yidhi, walle haddii dayaxa iyo cadceedda midba gacan la ii saaro inaanan ka tegayn waxa aan ku taaganahay. Dhammaan dadkii nolosha guulaha ka gaadhay waxay ahaayeen kuwo ku adag waxa ay rabaan, kuna qanacsan fikirkooda nololeed. Guulaha iyo wax soo saarka cusub ee maanta la gaadhay waa riyadii shalay. Haddii aad u fiirsato waxyaabaha kugu xeeran sida dhismayaasha dhaadheer, maraakiibta, diyaaradaha, taleefeenada iyo internetka iyo idaacaduhuba waxay shalay ahaayeen riyo ku jirta maskaxda mid ka mid a daahfurayaashii daahfuray. Riyadu waa meesha ay ka bilaabanto. Guul kastaaba waa cunsurka ugu muhiimsan ee waxqabadka. Waxa uu yidhi Albert Einstein oon kaga soo hadalay muuqaaladeennii hore qisadiisa, riyadu waxay ka muhiimsan tahay aqoonta. Haddaba xagla laaban guul laguma gaadho. Aduu ha isxaqirin inta ayna dadka kale ku xaqirin. Aduu isku kalsoonow, niyadda wanaaji, ilaahayna tala saaro mar kasta. Hana u ogolaan dadka kale inay hoos ku dhigaan. Waxaa hubaala inaad soo martay noloshaada guuldarrooyin fara badan. Si kastaba ha ahaatee, ha u ogolaan dadka kale inay ku niyad jabiyaan ama ay kugu tilmaamaan inaad tahay qof aan waxba qabsan karin. Ma jiro qof wada wanaagsan. Qof walba khalad ayuu sameeyaa. Ku dhiirigeli naftaada inaad tahay qof wax qabsan kara, guulaysan karana. Ha ka baqan guuldarrada. Haddii aad ka baqato wadada guuldarrada, guuldarra ayaa kugu dhacaysa. Weligaana guul gaadhi maysid. Guushu kuuma imanayso, laakiin adiga ayaa raadsanaya. Tallaabada u horeysa way adag tahay, laakiin adiga ayaa fududaynaya. Noqo qof jira, noqo qof la soo hiigsado, noqo qof samir iyo dulqaad leh. Hiigsiga aad leedahay waa inaad joogtaysaa, ku dadaashaa. Hayaanka aad ugu jirto inaad gaadhid guusha waa inaad hubisaa kolba inaad haysid hilinka iyo toobiyaha aad u marayso guusha. Waa inaad u samirtaa hadimooyinka ku gadaaman jidka guusha. Haddii aad la kulanto dhib, waa inaad u adkaysatid. Waa inaad niyad sami iyo tala saarasho alle la timaadaa. Waa inaad noqotaa qof marka uu guul gaadho had iyo jeer ilaahay u mahadnaqa, ka dheeraada kibir iyo isla weyni iyo wixii la mida. Waa inaad u tafaxaydataa sidii aad u gaadhi lahayd guulo kale. Haddaba waxaa la isku raacay in guusha dhabta ahi ee waaraysa ay tahay guulaysashada aad ku guulaysato if iyo aakhiraba iyo raaligelinta Rabbi. Sida Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegay, qofka guusha dhabta ah gaadhay waa qofka naar ka badbaada, jannana gala. Guushu ha ahaato mar walba garabkiina. Daawada waad ku mahadsan tahay haddii aad soo gaadhay ilaa dhammaadka muuqaalka like saar, sidoo kale subscribe channelka haddaad nagu cusub tahay. Haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay. Assalaamu calaykum.